qisadan jaceyl waxay ku dhacday gabar lagu magacaabo Nafiso isla markaana ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Nafiso waxa aalada internetka iska barteen wiil lagu magacaabo Anwar isla markaana u dhashay wadanka Jabuuti. Anwar waa 19 jir waxaana xiriir uu la sameeyay Nafiso ayaa Anwar waxa ay sameeyeen markii hore isbarasho ku aadan xagga internetka labadooda waxaana ugu dambeyntii marba marka ka dambeeyay xaaladdu ay noqonaysay in isbarashadu ay sii balaaranayso maalin walbana xaaladda la iska wareysanayo. Nafiso waxay jecleed mar waliba in qofka wanaaga ay ku barato in xaalkiisa ay ka warqabto waxaana aalada internetka ama qadka marka ay gasho ay durbaba salaami jirtay Anwar. inkastoo Anwar isagana uu ahaa wiil iska xaafad jooga waxa uu jeclaysay in Nafiso mar walba isagana uu la soo hadlo. Arrinta waxay keentay isku soo dhawaansho labadooda kadib waxa labadooda dhaxmaray xiriir jaceyl oo uu soo bandhigtay Anwar. waxaana Anwar mar walba uu sheegi jiray Nafiso inay tahay qof wanaagsan isla markaana isaga weligii uusan imaan Soomaaliya. waxaana Anwar mar walba sidoo kale gabadha uu ka codsan jiray in wanaaga farxadeed uu jecel yahay iyada uu la qaybsado uu yahay mid daacad isla markaana aan la gaari karin. Anwar waxa uu ka codsaday Nafiso si muuqaalkeeda uu barto in sawirro ay u soo dirto inkastoo Nafiso iyada dooqeeda uusan ahayn in sawirro dadka ay u dirto balse waa ay jeclaysatay in Anwar ay la wadaagto muuqaalkeeda balse Nafiso ma aysan jeclaa jirin in muuqaal ahaan iyada loo soo waco maxaa yeelay xaafadda ay joogto waxaa jooga walaalaheeda oo ahaa kuwa aad u adag isla markaana aan jecleen falaadka waqtiga badan kaga baxaya xagga internetka. Nafiso markay u dirto sawirrada Anwar waxa uu sheegay in sawirrada ay yihiin kuwa isaga cajibiyay isla markaana muuqaalka Nafiso uu aad u soo jiitay. waxaana Anwar Nafiso uu sheegay in xiriirka jaceyl uu qabo uu yahay mid sareeya isla markaana heerkiisa uu yahay mid ugu sareeya isaga noloshiisa uu arko. Anwar Nafiso waxa xiriir jaceyl uu la wadaagay muddo ku siman sanad waxaana Nafiso xilligaasi ay dhameeynaysa waxbarashada dugsiga sare waxaana ehelkeeda mar waliba ay ku dhiirigelin jireen in ay waxbarashada xoog ay saarto. Anwar Nafiso waxa uu ka codsaday xilliga waxbarashada ay dhameyso in jaamacad ay u soo aado wadanka Jabuuti waalidkana arinta ay ka dhameyso. Nafiso hawshii waa ay gashay waxaana ay la hadashay hooyadeed si ay ugu wargeliso xaaladda la xiriirto waxbarashadeeda dibadda. waxaa Nafiso waalidka ay ku dhiirigelisay in waxbarashada xagga wadanka Jabuuti ay tahay mid ka wanaagsan wadamada kale ee la dariska maxaa yeelay waxay u tilmaamtay jaamacad ku taala wadanka Jabuuti oo astaan ahaan markii horeba uu soo siiyay Anwar. waxaana Nafiso hooyadeed iyo aabaheed ay ka ogolaadeen in waxbarashada ay u aado wadankaasi Jabuuti. Nafisana Jabuuti ay kula noolaato habaryarteed oo muddo ku siman 10 sano halkaasi degan. Nafiso waxa ay markii horeba inta aysan aadin wadanka Jabuuti Anwar xiriirka uu la soo sameeyay xagga hadalka waxa dardaaranka uu ahaa Anwar marka Nafiso ay timaado wadanka Jabuuti in xiriirka jaceylka uu sii weynaanayo isla markaana muhiimadu hadda ay tahay in la is arko sidii la isku arki lahayn ay tahay sida Nafiso ay ku gaari karto wadanka Jabuuti. Anwar sidoo kale waxa uu daneynayay marka Nafiso xagga ay tagto in nolosha Nafiso iyo isaga ka dhaxaysa ee ahmida mustaqbalka in la soo gunaanado isla markaana wax kasta la dhameeyo Nafisana isaga noolaato wadanka Jabuuti. Anwar muuqaalka uu taameeyay waa kii Nafiso inkastoo Nafiso sawirrada Anwar ay u dirtay ahaayeen kuwa u badnaa kaamirada moobilada lagu galo ee loo yaqaano power kaamirada iyo kuwa lamid oo muuqaalka qofka sidoo uu yahay si rasmi kaga bedelay isla markaana midab kale oo nuur badan u sii saaraya. muuqaalka soo jiita Anwar ka maadaama uu ahaa waxa Anwar uu jeclaystay in xiriir wadaaga uu la leeyahay Nafiso uu noqdo mid uu soo gunaanadayo mustaqbalka dhow. waxaana ehelkiisa u sheegay inuu bari doono gabar kaga imaanayso Soomaaliya gaar ahaan magaalada Beledweyne. xiriirka Anwar uu la lahaa Nafiso waxa uu ahaa mid uu ku kalsoonaa waqti iyo waaye badan inkastoo isbedelba uu soo socdo. Anwar waxa uu sugaaba waa Nafiso waxay ka ambabaxday magaalada Hargeysa oo markii horeba gaari ay ku tagtay waxaana halka ay ka raacday diyaarad. markii ay gaarto wadanka Jabuuti Nafiso waxa garoonka ku soo dhaweeyay Anwar
balse wixii ay filanaysay ma aysan noqon arrintu midii farxadda ahayd. Anwar waxa uu soo dhaweeyay Nafiso inkastoo weji fiican oo furfuran uusan ku soo dhaweyn maalinka, maxaa yeelay muuqaalku uu filayay ma ahayn kii rasmiga ahaa ee markii hore uu daneynayay isla markaana sawirada loogu soo diray. waxa uu arkay muuqaal aan qancin, waxaana uu go'aansaday Anwar in Nafiso uu kaga tago garoonka diyaaradaha ee Djibouti. Nafiso markii horeba socdaalkeeda waxay ku wargelisay habaryarteed, balse maalinka ay soo baxayso iyo saacadda ay ku aadan tahay Djibouti badi waqtigaasi waxay ku saleysay la socodsiintiisa Anwar, maadaama aysan jecleen in habaryarteed ay ogaato xaalka isaga iyo sidoo kale iyada ka dhaxeeya ee la xiriira jaceylka. Anwar waxa uu sheegay Nafiso intuusan ka dhaqaaqin garoonka diyaaradaha, Nafiso waxa tahay qof qiyaamo badan, waxaan ka codsanayaa in jaceylkaad ii qabtaad iska ilowdo isla markaana xiriirkeena uu halkan ku ekaado, maxaa yeelay ma tihid dooqeyga rasmiga ahaa, ima qancin muuqaal ahaanna maadan isoo jiidan, sidaa daraadeed abbaayo Nafiso iska ilow jaceylkii aad ii qabtay ee fadlan isaga laabo halkii aad ka timid oo ahayd magaalada Beledweyne. Nafiso oo amakaag iyo sidoo kale jahwareer badan uu soo wajahay, habaryarteed taleefankeeda ayay wacday, waxaana habaryar ay ka codsatay in garoonka ay ugu timaado, balse habaryar maalinka shaqo ayay ku maqneed oo meel ka fog xaafadda ayay jirtay. arrinku waxay noqday in Nafiso waqti badan ay garoonka Djibouti ay ku nagaato isla markaana ilin wajigeeda uu buux dhaafiyay. waxay dareemaysaa murugo badan, maxaa yeelay xaalka ay la kulanta ma ahayn wax ay filaysay. Nafiso ugu dambeyn waxa garoonka ugu yimid habaryarteed, halkaana waxa ka wada habaryartii habaryar waxay u sheegtay xaalka gabadha haysta waxa uu noqon karo, waxaana ay weydiisay maxaa kugu dhacay gabadheeda. Nafiso ayaa ugu jawaabtay habaryarteeda in marxaladda haysata ay tahay mid ay la yaaban tahay waddanka ay timid oo kaliya, balse aysan jirin murugo kale. Nafiso maalmo kadib oo Djibouti ay joogtay, waxaa habaryarteeda ay ku tiri, habaryar waxaan rabaa inaan u laabto Soomaaliya. waxaa lagu yiri, gabadheeda muhiimadaad halkan u timid soo ma ahayn waxbarasho, aaway waxbarashadii halkan aad u timid, mise waxaa la qabsan weysay waddanka Djibouti. Nafiso habaryarteed waxay ugu jawaabtay, habaryar waxbarashada dhan waxaan rabaa inaan iska dhaafo, maxaa yeelay waxaan doonayaa inaan isaga laabto magaalada Beledweyne oo ah halka hooyo iyo aabe ay joogaan. habaryartoo aad u yaaban ayaa Nafiso maalinkii labaad ka soo duulisay garoonka diyaaradaha Djibouti. markii Beledweyne dib ay ugu soo laabatay, Nafiso waxay la kulantay waalidkeeda, waxay kaga sheekaysay xaalkii iyo sidoo kale arrintii qabsatay, waxaana ay ku wargelisay in wiil la yiraahdo Anwar uu qiyaamay isla markaana sababihii Djibouti ay u tagtay ay ahayd arrinta. waalidkii aad bay ula yaabeen arrinta Nafiso. ugu dambeynna Nafiso waxa waalidku ay go'aansadeen inay ku daraan wiil qaraabada ah, inkastoo marka hore loo soo bandhigay iyadana aysan ku qanacsaneen. adiguse sidee kula tahay go'aanka Nafiso waalidkeeda ay ku sameeyeen mid qalbigeeda deji kara ma kula yahay?